kiiska Sayid Cali dabcan wuxuu ahaa kiis darajada koobaad ka bilowday maxkamadda gobolka ka bilowday dadkuna waa ka warqabaan waxaan u maleynayaa kiiskii dadku aad u danaynayeen oo qof Soomaali oo hadda kiiskaas aan ka warqabin waa aad u kooban yahay kiiska maxkamadda gobolka xukun ay ka soo saartay maxkamadda racfaankana xukun kale ka soo saartay maxkamadda gobolka xukunkii ku waafaqday maxkamadda sare cabasho u qaateen dhanka eedeysanaha iyo qareenadiisa ayaduna waxay soo saartay xukun lamida xukunkii labada darajo ka hooseysay darajada koobaad darajada labaad ay gaareen hadda wuxuu u rahman yahay xukunkaas laba wado inuu mid raaco inuu dib u eegis aado oo dhankaas wali dib u eegis u furan oo fursad sharci ay haystaan markaan ka hadlayna anigu aan garsoorkayga sharci yaqaanku wuxuu ka hadlaa fursadaha sharciga qofku haysto fursad waxa u furan inuu dib u eegis aado waa u furantaa waxa kale oo furan xafiiska xilaalintu inuu maxkamadda sare ka soo dalbado in la toogto sida darteed lagu fuliyo xukunadii ka soo baxay maxkamadaha kala duwan oo ugu dambeysay xukunkii maxkamadda sare ugu dambeyntii mid ugu dambeeyay garsoorka Soomaaliya markii wax xukmiyaan maxaa caqabad ka haysta in xukunka uu fulo caqabad maxaa ka haysta waxa la soconaa Sayid Cali in dhowr maxkamad ay xukuntay laakiin wali aan talaabo la qaadin caqabad ka haysta waa mahadsantahay fulnadu waa kala duwan yihiin fulnadu waa qayb madani waaye xukunada madaniga fulnadooda waa gaar fulnada ciqaabtaana waa gaar fulnada ciqaabta tusaale ahaan inta badan waxaa soo dalbada xafiiska xilaalinta soo dalbada fulnadu waa laba nooc hadii markii ay dil yihiin xafiiska xilaalinta soo dalbado oo maxkamadda sare laga dalbadaa markii ay yihiin xabsi iyo wax la xiriirina maxkamadda gobolka oo maxkamadda darajada koobaad oo xukun ka soo bilowday ayaa waxay leedahay fulintooda fulnada dilka kaliya laga fikirayo dadka waa lagu fuliyaa xukunada waa la fuliyaa xabsiyada la fuliyaa xabsi daayinka la fuliyaa ganaaxyada la fuliyaa waxa soo dhan waa fulan laakiin waxa kaliya oo hadda aan fulin xukunada oo dilka ah ayaguna waa fulaan dhawaan waana ognahay dad fara badan oo aad u fara badan oo dilka xukunaya xabsiyada ku jiraan oo qisaasta ama dilka lagu xukumay xabsiyada ku jiraan arrintaasna waliba dawladda duruufaheeda markii loo fiiriyo waxay ahayd dadkaas diba xukunkooda ku dhacay xukunna aan racfaan ka qaadan ama cabasho ma dib uga seyna qaadan xukunaas in la fuliyay ahayd waxaan rajaynaynaa sanadkan 2025 inuu daafur noqon doono fulinada xukunadaas muxuu dilka insha Allah